muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtiin waxaan idin leeyahay fiidnimo wanaagsan. maanta waxaan halkan u soo istaagay in aan idin kala hadlo riyo muddo dheer aan ku riyoonaynay oo rumoobi doonta saacada kadib haddii Allah raalli ka noqdo. waa riyo aad u muhiim ah, taariikhi ah, saameynna ku leh mustaqbalka dowladnimada iyo dimuqraadiyeynta xukunka ee dalkeenna. waa arrinta doorashada golaha deegaanka ee gobolka Banaadir oo qorshuhu yahay in ay qabsoonto haddii Allah raalli ka noqdo maalinta berri ah ee Khamiis 25 December 2025 oo ay naga xigto saacado kooban insha Allah. walaalayaal, tan iyo markii la ii doortay xilka madaxweynaha jamhuuriyadda, aniga xukuumadda, golaha wada tashiga qaran, golayaasha sharci dejinta dalka, waxaan dadaalkeenna isugu geynay sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah, loogana gudbi lahaa hanaankii dhowr qof ay go'aanka uga gaari jireen aayaha xukunka dalka iyo cidda xilka qabanaysa iyo cidda xilka weynaysa. bilowgiiba annagoo ku jirna dagaalka khawaarijta, dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu difaacayo midnimada dalka iyo dadaallo kale oo qarankeenna dan u ah sida ku biirista suuqa bulshada bariga Afrika, qaadistii xayiraadda hubka, ka mid noqoshada golaha ammaanka, sahminta shidaalka iyo khayraadka dalka. haddana waxaan isku howlnay in aan diyaarinno sharcigii doorashooyinka qaranka, sharcigii xisbiyada iyo dhismaha guddiga qaran ee doorashooyinka oo dhammaantood lagama maarmaan u ah hirgelinta doorasho qof iyo cod ah. alla mahadii howlahaas oo dhan way noo hirgaleen. maantana waxaan soo gaarnay marxaladii codbixinta ee ay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda codkooda dhiiban lahaayeen si ay u doortaan wakiiladooda. ku dhowaad 1 milyan oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah ayaa isu diiwaan gelisay in ay codkooda ugu dhiibtaan doorashada golaha deegaanka ee caasimadda, kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay qaadanayay kaarka codbixinta. maalinta berri ah ilaa 20 urur siyaasadeed ayaa ku tartami doona